kuwa maalin qaylayo iska barjeynaya waa kan jamaacadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u galay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyogan way baqtiyeen oo wayna dhageysteen markaan u yar dhamaynay wacdigii aan idhi fadhiguna kala fiicane masaajidkeena mariyo neer raac mid baa gacanta taagoo yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhagaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hal hadalkaa ka warrama dadka waani baa nabiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihid nabigii baa sidaa lagu yidhi waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhinaa aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taal iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay in soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintiiyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raac niman raacaya na raac jamaacadda intii kalead soo salaamaya na raac ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhagaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaato oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi ar cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor u soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen dan saacadda gaadhan u malayn waad yaa ma soo gaabiyaa kolka in yar insha allah in yar insha allah allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaagiiyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebiguu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb arruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayey quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluukoo faqiiraad noo timiday adoo haniya naga bixi maysid ama xoolaha halkaa dhig
ومحمد أبو فقير كده بتج أما العقد هذا هيسوى مقالة ما كنا نقول وحيد أردن الرومي أنا هيبودي حداد يدشان أنا وحبا اللي قد لي سو لعقوا مرة بتانها لعقت دي واتنا قاتها انتي كلنا ملهم لا يكو أساتها كلبح وقاتها نبي جيجي هكذا بتجي يدافع بودي وحلقوا امتحان الصحابي ومعي إلهي الرسول كي سو دنا هي لعقت هذا كلا دوره متكابو دورته بار متكو دورته إلهي بو دورته يا رسول كيس فقير مركب حوليس يودن بودي بي وحر طريقه يبنى هذا الرسول كي بكذا بتجي سؤال لقى يدوا كاس وضل مر مدينة يسوون سو قارن آية قرآن كسو دقيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ما قال ذي مدينة مركو سو قلينا رسولك إلهي بهرتا قنوله ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى يا أبا يحيى قنع السقا ما أنت إلهي ألقى الشيء واتكم عاشتي بايع مشركة إلهي ألقى الشيء واتكم عاشتي برسولك ليا وصل يا رسولك إنسان لعقت يا إلهي يا رسولك سكال الدورو لعقت يا رسولك وحيك كلا دورنيين إلهي يا رسولك سي قادنيين قبيلك يا دين الإسلام كلا دورنا متكي قاتل هذا مستنى بحالك الصومالي يكون داريسا بحالك الدلك إني أكون ويني يا الله نصعب بن عمير وادقرنا إنسان إله الرالي كان نغضي مقري وأنك أقوه الرأي نبي مدينة وصادر ويان وقرآن كبر الرأي مدينة إيضا مدينة نبي محمد ونني من مسكين لقد السن وأنك قري دين توقل يبوها رأي مدينة عنده هوغي وبتكوك مصعب كجعل يعني walaalkiisii ka yaraa ee hooyadii ay la dhashay u naasdaayay ayaa ku jira 70kii mushrikiinta dagaalka badar lagu soo qabtay la soo xidhay iyana soo xidhay nin reer Madiino Ansaariya soo xidho haysta halka Abu Jifa Mus'ab nasaas oo dhex socda Ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii Madiina diinta gaarsiiyay weeyaan marka Abu Dulmaro saas uu eego walaalkay hooyadii baa dhashay وكون الناس دايين ويان والولال حرقوا يقول أتكيه هيقى دبعيه إي شفاعات قادوا كدبع الدبولي مصعب صدان انتو يقول يا أخ الأنصاري ولال كيقى أنصاري الرئي مدينو مربى النبي يقول هدولي نين ولو نكات صوحي دي داد كيسات مدح فرشاك قادنا يسام والنبي يقول يريه كان واتكا معاشتوه هو يدي با حولب بدن لي لعق بدن يا مدح فرشاك بدن باتكا قادم دوتاي حرقكو أتكيبو كيدي walaalkay adiga ma habuda waa kaabud ansaariga ka diinta walaal ku nahay cid walba aniga iga dhow buu ka yiri xariga ku adkay buu waa gal weeyaan Abu Sufyaan oo marka aanan islaamin ayaa magaalada Madiina u yimid nabiga heshiis inuu la galo inantiisii Ramla bint Abi Sufyaan waa zawjadii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu aqalkayga ku weecday oo damcay gogoshii nabigeena ku fadhiisto waa ka hoos qaaday markaas uu aabo ma hal diintii nabi maxamed ma hal kaabay ku gaarsiisay inaad aabahaagii ku dhalay gogosha aad ka qaado oo gogosha yar aad u ogolaan weydo waxay tiri may aabahay baa tahay gogosha nabi maxamed waa gogol taahira adiguna mushrik nijaasa tahay bay ku tiri nijaasa gogosha nabiga u diidanahay bay ku tiri islaam muslim agtooda ilaahay agtiis diinta ilaahay rasuul yaa qiimo agtooda إنك أنا ما أنت وضرك سن حالك إن الدين تأكتي نقيمة يا لا تعيا دونية يا وديارة ده الدين تهكا شغينه مرك الدين تشغل هذا الغوب بندقه هروسع وايو دين تؤدي ده إذا كان راعي وحبا كان راعي مايا أو شيء كستو مالكاغا وقتيغا iyo nafta la galiya qiimiisa la gartaa موبايل كايراد wadata Soomaaliyeed arkisid ilmayar inuu qurrad ku xaquuqa madu ogolan muraayadaas musbar haduu soo qado soo xaquuqa war musbar niba kiilo sokor soo iibsaday magaaladu la dhaxmaraya baadu sokorta ku sitay baad dalooshantay
way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayli war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimaheegaan garanaynaa lana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayoo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyoma badan sidaa weliba idinku waad naga fiicantihiin diintii baa maanta dhan inaga daadanaysa inaan soo qabanno soo maha dee ma qolo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsannaa ballinkiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahada